waa santahay tafani wararka naga soo gaaray deegaanka godol laba oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in habeenkii xalay ahaa xaafad kamid ah deegaankaasi lagu arkay meedka gabar 10 sano jir ah oo sida dadka deegaanka ay sheegeen lagu arkay meel ku dhow guriga ay ka degnaayeen deegaankaasi gabadhan meedkeeda la helay ayaa dadka deegaanka waxay sheegeen in lagu magacaabi jiray Sagal Biraad Axmed isla markaana ay keen xilli qoorta xarig loogu xiray isla markaana halkaasi ay ku dhimatay sida dadka joogayaala ay raadiyaha kulmiye u sheegeen dadka deegaanka ayaa waxay sidoo kale raadiyaha kulmiye u sheegeen in dhacdadan ay tahay mid ku cusub deegaanka isla markaana walwal ay ku abuurtay waalidiinta deegaankaasi ku nool mana jirto ilaa hadda xog rasmi ah oo ku aadan sababta ka dambeysay dilka gabadhan yarta ee lagu diray deegaanka godol laba oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Eheladeeda ma sheegeen waqtiga rasmiga ah ee iyada ugu wardambeysay goormeesa la arkay masaakay mise xalay dad arkay oo arintaasi ka warramay baa jira. waa maasantahay qaar kamid ah ehelada oo aan telefoonka kula xiriiray waxay sheegeen in gabadha ay ugu dambeysay saacado ka hor isla markaana markii dambe ay meedkooda ay ka heleen meel ku dhow guriga ay ka degnaayeen deegaanka godol laba waxayna sheegeen in ilaa hadda aysan garanayn waxayna dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo sababta ka dambeysay dhacdadani ku cusub deegaanka godol laba oo 30 kilomitir ugu beegan koonfurta magaalada Cadaado. Libano ugu dambeyn waxaad sheegtaa inta aad ehelada la hadlaysay ma jireen wax walaac ah oo ay ka qabeen dilka marka laga soo tago in kufsi oo dhacay ama wajir dil kale oo jiro. waa maasantahay ehelada oo aan telefoonka kula hadlay waxay sheegeen in ilaa hadda aysan baaritaan ay ku hayaan isla markaana ilaa hadda aysan xaqiijin karin in kufsi loo geystay gabadha 10 sano jirka ee xalay meedkeeda laga helay gurigeeda meel u dhow.